sida wada ogsoontihiin waxaa dhacday taariikhdu markay ahayd bishii 8-9 2019 ama taariikhdeenna bishii 13 waxaa jirtay kulan ballaaran oo ay beelaha jareerweyne yeesheen oo jigjiga lagu qabtay kulankaas oo ay ku doorteen suldaanka guud ee beelaha jareer ee degan dowladda deegaanka Soomaalida waxaa kale oo iyadana jirta beel marka la leeyahay beelaha la jareer hal beel kaliya maaha waa beelo kala duwan waxayna leeyihiin ugaasyo iyo suldaano odayaal dhaqameed iyo nabadoono beel kasta u gaara markaan sii guda galo mudanayaal iyo marwooyin kulankan oo ujeedadiisu tahay wala tashiga beelaha jareereed iyo in macnaha beeluhu ay taageersan yihiin isbeddelka cusub ee ka hana qaaday dowladda deegaanka Soomaalida marka ugu horeyso anigoo ku hadlaya dhammaan beelaha jareerweyne ee degan gobolka Shabeelle Afdheer Liibaan ama 7 degmo ay ka degan yihiin deegaankeena degmooyinkaas oo kala ah Iimey Galbeed Iimey Bari Abaqorow Qalaafe Mustahiil Feerfeer iyo Dolobay dhammaan anoo ku hadlayo magacyadoodii iyo shacabkaasi meelahaas degan waxaan idinku salaamaynaa haddaad tihiin dowladdeena sharafta iyo qiimaha leh garaadada ugaasada suldaanada culamaa udiinka dhalinyarada haweenka iyo dhammaan qeybaha bulshada ka kooban yihiin waxaan idinku salaamaynaa maraba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ogsoonnahay ama aad ogsoon tihiin haddaad tihiin waxgaradkii Soomaaliyeed dhibaatooyinka deegaankeenna ka dhacay ee 30 sano aan soo dhaafnay dhibaatada ugu weyn oo ay ku dhacday waxay ahayd beeshan jareerweyne ee degan deegaankeenna dhibaatadaasi waxaa ka mid ahaa sidaan haddaba ladiin sheegay muddo 16 sano inaan hataa Addis Ababa aan joognay annagoo xaqeena la duudsiyey dilna loogu daray xuquuqdii aan ku lahayn deegaankanna nalaga tirtiray asal ahaanba ayaa nagu kaliftay in hataa inaan Addis Ababa aan tagno dacwoono dhibaatadaasi hadda aan sheeganayno qabaa'ilada Soomaaliyeed waa suurtagal inay nala mid ahaayeen qaar ka mid ah balse oo loo kala badnaa dhibaatadaasi dhacday annaga haddaan nahay beesha jareerweyne isbeddelkan maanta socdo annagoo ka duulayna dhibaatadii markaasina lagu hayay inaan isbeddelkan maanta taagan doorkii looga baahnaan ka soo qaadanay haddaba waxaan codsanaynaa dowladdeena cusub ama dowladda deegaanka Soomaalida oo hogaaminayo madaxweynaheena qaaliga ah madaxweyne Mustafa Umar Maxamed iyo xisbigaba waxaan ka codsanaynaa dhibaatooyinkan hadda aan sheegnay in wax laga qabto waxaan maanta aan ku faani karnaa ama aan ku faraxsanahay hordhaca aan noo sameeyay ama ay noo sameeyeen madaxweyne Maxamed Umar iyo dowladdiisaba waxaan codsanaynaa in naloo dhammaystiro xuquuqaha ee qabaa'ilada Soomaaliyeed heleen inaan annagana ka mid noqono oo aan helno taas waxa weeye waa codsigii guud ahaan qoraalkii hadda naloo akhrinayay ayuu hadalkeena uu ku dhan yahay waxaan doonayaa odayaasha deegaanka ama odayaasha dhaqanka ee deegaankeenna waxaan ka codsanaynaa horey waxaa u jirtay beeshan belweyntan in laga soo qaadi jiray
beelaha Soomaaliyeed ama jabsinada Soomaaliyeed jabsin ka mid ah annaga jabsin ma nihina waxaan nahay beelaha Soomaaliyeed beel ka mid ah degan deegaankeena xaqna waxaan u leenahay in ay noo tixgeliyaan beelaha Soomaaliyeed siday u tixgelinayaan oo ay aaga qayb gelinayaan ugaasadoodii garaadadoodii suldaanadoodii annagana inay sidaas noo tixgeliyaan oo ay nooga qayb geliyaan ugaasadeenna iyo suldaanadeenna sida beelaha Soomaaliyeed loo qiimeeyo in annagana loo qiimeynaa codsanaynaa waxaan mar labaad ku celinayaa ugaasada garaadada suldaanada waxgaradka Soomaaliyeed oo aan ka codsanaynaa sida beelaha Soomaaliyeed ugaasadoodii loo qiimeeyay inaan loo qiimeeyo oo aanan hal qabiil aan jibsin hoosayna laga soo qaadin waxaan nahay waxaan nahay 14 beel ee beel waaweyn ah ina sidaas inoo tixgeliyaan ayaan odayaasha dhaqanka ayaan ka codsanaynaa insha Allah waxaan dib ugu noqonayaa cadaalad darrada jirtay waxaa ka mid ah dowladnimada lidin sheegay waxay ka soo bilaawataa ama ka cogsantaa waa qabalay lagu xisaabtamaa qabaleyaasha annaga hadda qabalay noo ah waxaa ku xeereeran halkaas qabalay kun oo hoos timaado oo shig la yiraahdo kun qabalay ala halka qabalayna tan ugu yar waa waxay ka kooban tahay kun qos meeshii ay ku nool yihiin xaq waxay u leeyihiin inay gobol noqdaba degmo iska dhaafay ayaa shig laga dhigay halkaasi waxaa ka muuqata caburin baa ka muuqata dowladdeena ee maanta aan taageersannahay oo hoo iyo xiilaba aan la garab taagannahay waxaan ka codsanaynaa qabaleyaasha haddii koow wax noo qabanaysan qabaleyaasha nooga soo bilaawa indhihiina ku soo arka madaxweyne indhahaada ku soo arag adoon dad kalaata noo dirin ka bacdi adaa ku qanci doontaa cadaaladana waafaji marka waxaan hoosta ka xariiqaynaa oo aan ka codsanaynaa dowladdeenna madaxweynaheena qaaligaana hogaaminaya mudane Mustafa kow dulmiga ugu weyn oo naga haasto waxay tahay qabaleyaashaana lagu cariiriyey markaad aragtidna qabaleyaasha kala Soomaaliyeed bal iska dhaafay qabaleeye degma hata kun qos kuma nool qabaleya degmooyinka qaarkood markaad fiirisid bal qabale iska daa qabaleydana ee qabaa'ilada Soomaaliyeed leh waxaa laga yaabaa 200 150 300 qoys ay ku nool yihiin waana qabale buuxda halkaasi waxay ka muuqataa marka madaxweyne nin cadaaladda u xiiliyaa tahay beelihii jareer weyne kalsooni buuhay kuugu qabaan rajo wanaagsan baan ku ayaan xaggaada naga jira waxaan kaa codsanaynaa koow haddaa wax noo qabanaysa qabaleyaashaas shigshiga ah ee liisu geeyey ee ka mid tahay inaanan xaquuq ku leenayn oon goob doorasho aanan noqonin si aanan u soo bixin xildhibaanada iyo wixii la midka ah oo budgetka lagu qaybsanayo halkaas wax nooga qabo adiga indhahaada lugahaada ku tag waxaan kalaato sii codsanaynaa waa ku mahadsan tahay madaxweyne iyo dhammaan dowladdiina oo dowladoo dhan waxaa tihiin aqoon-yahanadii Soomaaliyeed
maskaxdii Soomaaliyeed oo saafiga ahaa ama fiyoowa ayaa halkaas iskugu tago dhammaantiina noqdeen wasiiro waxaan idinka codsanaynaa khayr ilaahay si hal wasiir waana siiseen intaas ma haysaneen markii hore laakiin waa bilaaw oo maxad elinteeda leh waxaan inaan maaragtay wasiir noogu dartid ku xigeenana siisid maareeyahay agaasimaad heer kilil iyo heer gobolba aad maaragtay ka mid noqonno ayaan codsigeena sii kordhinayno oo mar labaad iyo mar saddexaad kaa codsanayna mudana madaxweyne shacabkii ku jeclaanahay hoo iyo xiilaba ku garab taagan waxaan kaa codsanaynaa waa bilowda inoo dhammaystir